magacay waa Saqar Ibraahim xildhibaan golaha shacabka horta waxa uu hambaleynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo u maleynaya in wadanka uu crisis galay laakiin ma aha crisis waa dimuqraadiyad oo mar hore loo arkeen meeshan waxa lagu hadal jiray gacana lagu hadal jiray iyo qori iyo waxaas laakiin hadda waa kala aragti duwanaansho oo baarlamaanka lagu muujinayo waa qof kasta oo meesha ama golaha shacabka ku jiro qof kasta xorriyad uu leeyahay inuu muujiyo ra'yigiisa iyo aragtidiisa marka waxaan waxa waa horumar iyo progress oo golaha shacabka hadda la arkay anakoo ku jirno golaha shacabka oo sugeen inaan doodno gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo siihayaha oo gudoonka gudoomiye muude wuxuu la imaaday warqad oo laga saxiixay gudoomiyaha hore oo iscazilaad oo meesha ku muujiyay marka waa u hambalyeynana asagana odayga oo wax badan soo qabtay maadaama hadda oo xildhibaanada ay arkeen inuu shaqadiisa ka bixi karin oo aragtidooda ay muujiyeen oo asagana uu ixtiraamay dadkaas intaana gudoomiye muude warqadda idin shaacin ka hor kulankii maanta ajandihiisa muxuu idin ahayn waa ajandihii hortaagan waxaa waa ajandihii oo kalsooni kala noqoshada gudoomiye Jawaari waxaas si rasmi ah waxa waa ninkaas inuu maxaa lahaa gudoomiye ayaa xaq u leh inuu shir gudoomiyo waana ajandahana hortaaganna waa ahayd waxa waa kala maxaa lahaa kalsooni kala noqoshada markaas ajandaha saas loo ahaa muddada oo khilaafkan taagnaa oo u dhexeeya gudoomiyaha golaha shacabka Jawaari iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxa halkii laga qaaday habdhowrihii baarlamaanka marka hadda habdhowrihii ma sii shaqada lagu eriyo horta khilaafka ma aha gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenka khilaafka waxa xildhibaanada oo arkayeen oo gudoomiye Jawaari shaqadiisa ka bixi karin ku-takrifalka dastuurka iyo maxaa xorhoosaadka iyo waxyaalo badan oo laga tabanaa xildhibaan kasto dhinaciisa wuxuu ka arkaa macnaha negative aspect markaas qofka markuu saxiixa ma aha inuu saxiixa bas ama uu u dhahay motion ku keen ma aha inuu keena qof kale influence gareena hatta hadduu jiro oo qof influence gareena laakiin damiirkiisu uu sheega macnaha inuu waxaas qof shaqadiisa uu ka bixi karin marka maxal aha mooshinka markii la saxiixa xildhibaanka wuxuu muujinayaa ra'yigiisa iyo aragtidiisa bas hadda marka maxay idin muuqataa mar haddii Jawaari meesha ka baxay waxaa imaan kara isleedin qof Jawaari ka wanaagsan sideen muuqataa xildhibaanadina mooshinka wada Jawaari ku guulaysan ridaan okay horta waxa waa si sharciyan harta waxa waa dhibaato hadday taagan tahay ma la fiirina macnaha in dhibaato kala imaanayso waxa la fiirina horta dhibaatada in laga leexiyo meeshaas kadibna wax fiican alag macnaha mafsada iyo maslaxada iyo mafsada waxa waa mafsada wax oo fasaad in laga leexiyo horta ma la dhihi karo macnaha kan haddaan ka leexino qof kale oo ka fiicnaan ma leh alxamdulillah ummadda Soomaaliyeed way badan yihiin aqoon yahaan way badan yihiin hatta haddii la dhaho kursigan waxa iska leh beel hebel ma la dhihi karo macnaha beel hebel dhan oo wax aqoon yahaan ka jirin oo xildhibaanada ku jiraan waxay noqonayaan wax ceeb ah ma dhihi kartid macnaha beeshan dhan oo qof aqoon yahaan ninkan kaligiis ayaad meesha taagan midda kale waxa waaye waa amaanad lagu dhiibay adiga markii lagu dooranayo waa amaana lagu dhiibay